kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee ololihii loogu jiray xilka ra'iisul wasaaraha oo xogeystay madaxda Galmudug, gobolka Banaadir iyo Hirshabelle oo dagaal ugu jira in siyaasiyiin ay wataan xilkaasi loo dhiibo. mid kamid ah xubnihii ugu sarreeyay madasha xisbiyada qaran ee ay hogaamiyaan madaxweynayaashii hore oo si lama filaan uga mid noqday musharaxiinta raadinaya xilka ra'iisul wasaaraha. beesha caalamka oo iyadana soo bandhigtay nooca ra'iisul wasaare ee ay doonayaan in madaxweyne farmaajo uu magacaabo iyo madaxweyne farmaajo oo si degdeg ah uga jawaabay. wararkeena kalena waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah oo amray in bangiga dhexe aan wax lacag laga bixin, iyo Soomaaliya oo qasaartay 500 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka soo gali jiray Sacuudiga. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah. waana Khamiis 30 bisha 7 ee July sanadka 2020. barnaamijkeena wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayna dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka fogaanayna ama ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaan ee fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka ku sheergaraynaya baraha bulshada. maanta waa maalintii soonka Carafo. soon wanaagsan dhammaan inta maanta sooman. waa soon aad u ajar badan oo lagugu dambi dhaafayo dambiyadii sanadkii hore iyo sanadka soo socda. allaha dhammaanteen ha inaga wada aqbalo dambiyadeennana allah ha inoo dhaafo insha Allah. aynu ku bilaabno barnaamijkeena xaaladda siyaasadda ee dalka. sida aad wararkeennii hore aad ku daawateen, waxaa weli magaalada Muqdisho ka socda olole loogu jiro cidda qabanaysa xilkii uu baneeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. ololahan ayaa marka aad fiiriso mararka qaarkood gaarsiisan heer maamul, waxaana ku hardamaya Galmudug oo inteeda badan Muqdisho joogta, isla markaana uu hogaaminayo Axmed Cabdikaari Qorqor. gobolka Banaadir oo ay kala hogaaminayaan siyaasiyiin kala duwan oo isugu jira gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish iyo siyaasiyiin horey oo ay uga mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray. dhanka kale waxa iyaguna aan markaasi dab yarshidaynin madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo si weyn u ololeynaya uguna ololeynaya siyaasi markii hore rajo fiican qabay, kana tirsanaa shaqaalaha banka adduunka, kana soo jeeda beledweyne. sidoo kale waxaa ololaha qaybka madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf si weyn markaas xariif uga gorgortanka iyo kala tuuridda, kaas oo la kulmay madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa ku dhowdhow ayaa arinta fursad weyn u arkay, maadaama baarlamaanku diyaar markaasi leeyahay inay meel mariyaan cid kasta oo la keeno ama madaxweynuhu soo magacaabo. laakiin qodobkan waxaa ku hoos dugan baa leeyahay muddo kororsi loo sameynayo hay-adaha dowladda oo gaarsiisan 2 sano. maamulka Galmudug oo ay markaasi taalay gogosha Dhuusamareeb 3 ayaa hadda u muuqan in ay wax shaqo ah qabteen. xataa weli ma aysan magacaabin cidda ugu matali doonta guddiga farsamada ee hore markaasi loo iclaamiyay shirka Dhuusamareeb 2. waxaana taas bedelkeeda ay si weyn uga mashquulsan yihiin sidii lagu xaqiijin lahaa xilka ra'iisul wasaaraha inuu noqdo mid ka soo jeeda deegaanada Galmudug. dhanka kale mid kamid ah madaxda xisbiyada mucaaradka kana tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa si lama filaan ah isu sharaxay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kadib iscilaadii Xasan Cali Kheyre. xildhibaan Cabdiqaadir Cusable oo hogaaminaya xisbiga Ilays ayaa magaalada Muqdisho ka wada olole uu ku doonayo inuu madaxweyne Farmaajo u magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha, isaga oo ka hor yimid go'aanka madasha xisbiyada qaran uu ka mid yahay. Cabdiqaadir Cusable oo horey u noqday markaasi musharax madaxweyne una tartamay madaxweyne kursiga xilliga Farmaajo ayaa Muqdisho ka wada shirar ay ku markaasi xubnihiisa kala duwan baarlamaanka ku matala golaha shacabka uu kursigaasi ku weydiisanayo si ay uga ergeeyaan. waxaana socda galaangalka lagu jira in madaxweyne Farmaajo lagu qanciyo inuu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo musharaxan. xildhibaankan ayaa horey u ahaa mid kamid ah madaxda sida weyn uga soo horjeeda hogaanka madaxweyne Farmaajo una cadcad madaxda mucaaradka, iyada oo aan la ogeyn sida uu markaasi ugu dhalatay rajada xilkan. laakiin waxaa aad u yar rajada laga qabo in xilka ra'iisul wasaaraha
wasaaraha ninkaa loo magacaabo. madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa si cad u diiday in ay qaataan xilka ra'iisul wasaaraha oo ka mid ah dowlad waqtigeedu 6 bilood oo uu ka harsan yahay. laakiin madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn u raadinaya shakhsi aanan saameyn siyaasadeed oo xooggan aanan yeelan doonin marka la gaaro doorashada. xogta aan helayno ayaa tibaaxaysa in villa Soomaaliya aysan rabin ra'iisul wasaare la tartama madaxweynaha marka la gaaro doorashada soo socota, taa beddelkeedana ay doonayaan inay helaan ra'iisul wasaare fulinaya amarka madaxtooyada. rabitaanka villa Soomaaliya ayaa is hortaagaya qorshe ay mucaaradku qayb uga noqon lahaayeen xukuumadda cusub oo la soo dhisayo, waxaana ay diideen in ay gabi ahaanba dowladdu muddo kordhin samaysato. haddaba iyadoo xaalku halkaas taagan yahay ayaa waxaa iyagana dhankooda go-aan culus wata xubnaha beesha caalamka oo madaxtooyada Soomaaliya ku cadaadinaya in ay soo magacaado ra'iisul wasaare aan maqaar saar ahayn. ila waradyada aan helayno ayaa sheegaya in xubnaha beesha caalamka ee dowladda federaalk Soomaaliya ka dalbadeen inay iyagu ku lug lahaadaan soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha imaanaya si uu u qabto wado ay markaasi jeexayso beesha caalamka. talaabada beesha caalamka ayaa ah mid ay horey markaasi u baratay in ay dalka ka sameeyaan, gaar ahaan dowladihii ugu dambeeyey ee dalka soo mara. laakiin xogta aan helayno ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu ku gacan sayray dalabka beesha caalamka ee ah in ay saameyn ku yeeshaan arrimaha siyaasadda gudaha. si kastaba, walaaca dowladda federaalka qabto ayaa ah in xubnaha beesha caalamka ay kordhiyaan cadaadiska ay ku hayaan dowladda, gaar ahaan in dalka ay ka dhacdo doorasho la wada ogol yahay oo aan ahayn tan qof iyo codka ee uu madaxweyne Farmaajo doonayo, isla markaana waqtigeedu uu markaasi ay ku dhacdo. bayaan ka soo baxay dhowaan beesha caalamka ayay ku sheegtay in aysan ogolaan doonin doorasho hal dhinac ah iyo in doorashadu waqtigeeda dib looga dhigo. sihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda oo maalin ka hor la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal xor ah oo aan loo meerin karin wax walba, laakiin waxa uu tilmaamay in dowladdu ay ka shaqaynayso in doorasho waqtigeeda ku dhacdo. si kastaba, madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sugayaa go-aanka ugu dambeeya ee uu kusoo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub. lama se oga qofka uu noqon doono ra'iisul wasaarahaas iyo awoodda uu yeelan doono. waxaa jira shakhsiyaad badan oo xilkaas u xusul duubaya, waxaana ka mid ah siyaasiyiin waaweyn oo qaarkood hankooda siyaasadeed uu aada u dheeryahay. lama se oga in madaxweynuhu ku qanci karaan qorshayaashooda siyaasadeed oo uu madaxweynuhu siin doono iyo qorshayaasha ay iyaga laftigoodaba wataan. wararka kusoo kordha ololaha ka socda Muqdisho iyo mustaqbalka villa Soomaaliya wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha Allah. iminkana sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa wada olole uu ku hubinayo in markaasi in dhaqaalaha dalka aan loo adeegsan siyaasadda. mudane Mahdi ayaa kormeer howleed ku tegay xarunta bangiga dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaas oo amar culus uu kusoo rogay. wararka ayaa sheegaya in Mahdi Maxamed Guuleed uu kulan la yeeshay maamulka bangiga dhexe, isla markaana uu kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo qodobo kale oo laga maarmaan u ah socodsiinta howlahooda. kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in lagu xoojiyo waxqabadka hay'adaha dowladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loo hayo bulshada si uusan gaabis u imaanin ama uga imaanin adeegyada kala duwan. wararka ayaa intaasi ku daraya in Mr. Guuleed uu ku amray maamulka bangiga dhexe in lacagta laga bixin karin bangiga inta lagu guda jiro xaaladaha kala guurka ee dalka. muhiim ayay noo tahay korjoogteynta habsami u socodka shaqooyinka dowladda, ka hortagga saameyn ka dhalan karta isbeddelka siyaasadeed, la socodka hanaanka hirgelinta qorshayaasha hortobinta leh ee wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda, iyo sare u qaadista isla xisaabtanka, hufnaanta iyo daahfurnaanta, ayuu boggiisa Twitterka soo dhigay sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka. tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo 25 bishan sii hayay xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay Mr. Guuleed ayaa waxa uu booqday xarumaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda, dekedda iyo bangiga dhexe, taas oo uu sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre uu mar walba kor kala socon jiray habsami u shaqayntooda. weli warqad TV ayaad nagala socotaan. iminkana
baqashada sanadkan uu baaqday xajka ayaa keentay in Soomaaliya ay qasaarto lacag dhan 500 oo milyan oo lacagta Mareykanka ah sanad kasta xilligan oo kale waxa dekadaha Soomaaliya gaar ahaan waa airborada Soomaaliya gaar ah dekadaha Soomaaliya Boosaaso iyo Berbera ka dhoofi jiray malaayiin xoolo nool ah kuwaas oo la geyn jiray mowsimka xajka oo dadka acmaasha gudanaya ay isticmaali jireen markaasi hadiyooyinkooda iyo udxiyada gudashada acmaasha xajka oo bilowday maalintii Talaadadii la soo dhaafay waxa saameyn weyn ku yeeshay cudurka COVID-19 markaasi uu sababay fayraska corona kaas oo dunida si ba'an ugu faafay dilayna 100,000 oo qof boqortooyada Sacuudiga ayaa sanadkan diiday in ay xajka markaasi loo yimaado ama dalka dibadiisa looga yimaado waxaana ka qayb qaadanaya dad gaaraya 1,000 qof oo kaliya oo horey markaasi uga sii sugnaa isla gudaha Sacuudi Carabiya halka ay ka qayb gali jireen 2 milyan oo qof sanadkii hore 2019 ayaa la qiyaasayaa in xoolaha Soomaaliya ee la dhoofiyay oo Sacuudiga loo dhoofiyay ee dalka soo galiyeen adduun ku dhow 500 milyan oo dollarka Mareykanka taas oo sanadkan noqotay mid aan la helin waxa ay sidoo kale saameyn xooggan ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee sanadkiiba mar ganacsigooda xooluhu uu wanaagsanaan jiray intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya aad ka daawanaysan Warqaa TV fadlan daawade waxaan ka codsanaynaa inaad wararkeena sii faafiso maadaama ay yihiin kuwa aan ka qayb qaadanaynin burburinta iyo dib u dhaca dalka balse xoojinaya horumarka iyo dib u dhiska dalka ku share garay baraha bulshada gaar ahaan Facebook si saaxiibadaada kale ay u helaan wararkan tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo